tala ay samaysteen dib damba u daba fadhiisan mayno. dad baa meelaha waxay ka yiraahdaan ina Khaliif Galeyd iyo in Cali Garaad baa meelo u socdo meelo noo wada. waxaan u xaqiijinayaa ninna inaanaan gunnimo kula tartamay. ninkii gunnimo doonaya u baxbaxsanaya reero kalaan hoos galayaale waa laygu haystaa waa kuu fasaxanta. garaadadu waa laba qaybood garaad siyaasadeed iyo garaad dhaqameed. waxaan doonayaa inaad noqoto garaad dhaqameed. waxaan kaa rabaa inaad ku ekaato dhaqan, inaadan ku milmin siyaasadda, inaan lagu gelin siyaasadda. waxaad tahay garaadkii Axmed Garaad. waxaa la doonayaa fariinta ninkuu kuu sheegaya mar buu horta wuxuu doonayaa inuu kaa soo dhaadhiciyo waa inuu wax kaa iibiyaa markuu wax doonayo inuu kuu sheego. dhaqan baad ii idmateen ha ilaawina xusuusnaada xilka aniga aad ii idmateen waa dhaqankaasi aad iga sugtaan wixii kale idinka dayacan ciddii aad u idmataan baa idinku maqan. war miyaan hadlayaa war miyaan heesayaa hoobaanud sidaan wax leeyahay bal horta ifahma caqliyadaydan yari way wareertay oo garan maayo waxaan meeshan dee ka garaadadu waa laba qaybood garaad siyaasadeed iyo garaad dhaqameed. waxaan doonayaa inaad noqoto garaad dhaqameed. dhaqan baad ii idmateen ha ilaawina xusuusnaada. dad baa meelaha waxay ka yiraahdaan ina Khaliif Galeyd iyo in Cali Garaad baa meelo u socdo meelo noo wada. waxaan u xaqiijinayaa ninna inaanaan gunnimo kula tartamay. meesha nimankaas 9 bilood balabniman isimada iyada khaatimo waxaanu fadhinay buuro wadal baanu fadhinay. aanu dadka mabda maaragtay lebanay waxaana markaa anugu raalli ka ahayna laguma khasbi karo. dadka hunguriga u shaqaystana maahay haddii malaayiin lacag la siiyo waxaa wallaahi aaminsanaya inaan cidina ugu khasbo. waanu saaraynay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland.